aad baad maasantay farxaan haddaan eegno kulan kaloo aad u xiiso badan baa jiray daawadayaal fara badan ay sugayeen waana kulankii u dhexeeyay asluubta ee gaashaan kulankii ciidamada asluubta guul muhiim ah ka gaadhay kooxda gaashaanna waa markii ugu horeysay ay guuldaro la kulanto 10 kulan kadib kooxdii gaashaan kulankii hore dirqi bay ku badisay kulankana ardaadiqaha la mariyay bal kooxdii gaashaan isbedel intee leeg baa ka muuqda maxaa sababay in kulankan guuldaro ay dhabar ku xambaartaan iyadoo asluubta la ciyaarayaan iyagoo ciyaartooydoodii iyo macalinkooga qaab ciyaareedkooga adeegto horta wali gaashaan lama oran karo way liitaan lama oran karo ay mataqaanaa si xun bay daloola ciyaaray oo gamekii u dhaw si fiican bay ciyaareen horta inankii furaha u ahaa waa ka maqnaa oo Mrs ku maqnaa Carlos maalintii hore waan ii sheegay game ka si fiican bay u ciyaariyeen oo ciyaarde mataqaanaa la isku awood sheegtay ma ahayn si fiican baa loo wada ciyaariyay goolasha lagu kala badiyayna way yaraayeen oo gool badan la isma dheeray 3 iyo 2 3 iyo 2 marka labada kooxood waa iska furnaayeen ciyaartoodu ciyaarta waxay u yar baahan tahay kaliya marka aad dareento in lagu soo weerarayo oo aad waa fafaray tahay oo aad mataqaanaa kaalinta hore ku jirto ee baraajuhu ku dan yahay waxaad u baahan tahay in soonka xidhato oo aad wax difaacan karto haddii laakiin mar walba aad ku xisaabtantayna kooxuhu kaa jilicsan yihiin kooxuhu kaa yaryar yihiin kooxaha aad ka wada badin karto dee waad qaawanaanaysaa mar walba marka gaashaan waxa ay yara fahmi weyday maalintaas in maadaama ay dhibicdu wax u taraysay iyaga oo dee 4 dhibcood ka horeeyeen dadka kale kuwa ku soo xiga inay difaacadaan markay ciyaarta baraajo noqoto iyo markay gool leeyihiin inay difaacadaan unbaa la habooneed qaab ciyaareedka ku soo gala Khalid Jaran bisoo kula muuqdo إلى ما حمين قد بها خالد تيم كيس والله يستخدم على كحجين بوها وفهسين هاي أو إنما ما دي لبارة قريب كوكو عسبيه أو خالد وحى هذا يرتقي عشان كصباحي كدي على كحجين بنقضي ده يمكن هو معلك كواد بدل كيس وصامين ملها بدل كيس دي هرتا ضدك وهيستو كده قالمي يسقى صدح ور ويقول شلون أيو كنا عاملين كلا ماني أو دبرك حكي قاعدين مركا تشعيب بكسو كردي شعيبنا كله وحوي استعماله شعيبنا لا دير فرسمه له oo ma taqaan 10 daqiiqo ku jira ciyaarta baas bixin karay marka ani lamu khaldanayn ma si haysan karaan hogaanka haddii sidan u sii wadaan dadaalka maalintii waa laga badiyay haddii qalad u noqoto guul darro kasta waxay ku tusaysaa ma taqaanaa wadadii guusha marka guul darrada hadday ka bartaan 10 weyn oo ay arkaan in loo jeedo lagu soo socdo oo de booska ay taageen lagala baxayo de oo 10 ka bartaan oo isdifaaci karaan oo way sii haysan karayaan kooxda asluubta maxaa ka caawiyo guul muhiim ah ka gaadho koox aan 10 kulan dhul kala dhigin asluubtu carcar bay ku jirtaa oo ma taqaanaa iyagoo team wanaagsana waa kuwan deemka weerarkiis la helay oo muddo weerar ma haystaa ma oran jirnay Jaafa iyo ma taqaanaa ninka kale Suhayb reer Wajaale xoogan ma taqaanaa kubadana iyo Maxamed Jaamac rag fara badan oo ma taqaanaa waxa haystaan ninka weerar fiican oo weerar waliba sii fadhiyaan rag fara badan oo kale marka asluubtu imika de nasiibkuna awal ka maqnaa imku waxaad moodaa inay chance la soo yara heleen de goolal ay dhalinayaan awal gool ma dhalinin oo way adkaysay gool ku dhaliya sabab marka qaab ciyaareedkan joogto ugu dhig karaan asluubtu wuxuu ognahay kulan way badiyaan kulan barbardhac kulan guul darro ku dhici jirtay sabab tusbaxan guusha u sii haysan karaa wayna horta ciyaareedkooga la eegmo inay la joogteeyaan mise wayna wax badan laga bedelo ma wayna horta joogteeyaan qaabkii maalintii wada ciyaarayeen iyo sidii wax difaacanayeen wayna joogteeyaan waa inay daawadaan qaladaadkay sameyn jireen oo gameska waa inay ka daawadaan astaan iyo turuba waana ka daawadaan wixii dhacayay ku dhacay iyaga maalinta aad badiso haddaad istaawato waa saashaqsanaanaysaa laakiin waxa muhiim ah maalinta laga badiyo haddaad gamekaaga dib u daawato waxaad noqonaysaa qof qaladkiisa arkaya waayo qofkii ka liitay ee adigu wax u haysatay qofkii ka xumaa wixii oo dhan arkaysaa kii gameka uu baahnaa waxa soo dhan arkaysaa marka waa inaad dib isku daawataa markaasaad sixi kartaa wixii ka ma garanaysaa qalad ka qayb gali karaan kaalinta saddexaad kooxda asluubtu ama matartan ma u gali kartaa inay ka mid noqon karaan kooxaha championka oo u bisil lama kala foga waa loo sameeyay صح ilaa maalin dhow macalinka ganacsiga macalinka xigeen ganacsiga waa adarkiisa soo lahaa waxaan u soconaa fikta sare marka lama kala foga oo waxa la wada leeyahay dhibcada isku dhow marka way u tartami karaan kuwa sare hadii la soo jiido iyagana jiidi karaan iyagana soo qaban karaan waa hagaag kulan kale aad u xiiso badan baa jiray ganacsiga iyo caafimaadka macalin Shamsuddin ilaa alaanka guul muhiim ah kalama bixin Hargeysa Stadium marka la eego horyaalka inkastoo FA Cup ka badiyay laakiin marka dhanka horyaalka la eego wali dhibca kama qaadan bal kooxda caafimaadka iyo qaab ciyaareedkeega iyo 4-3-3 iyo tababar subax ku wado sabay kula muuqdaan
maxaa kaga duwan yihiin qaab ciyaareedka hore ee u ciyaari jiray iyo qaab ciyaareedkan falsafadan macalinku waa mid noociyay horta caafimaadku waxaad moodaysaa inay xagga macalimiinta ay dhib ka yar haysto isbedbedelka marka Shamsuddin waa macalin cusub waa geemkii labaad baan malaynayaa ee laga badiyo marka dee weli isagu tijaabo ku jiraayo dee waa iska tijaabo oo macalinku mar hadduu meesha ku cusub yahay tijaabo gelaya dadka uu haystana dee way ku xidhan tahay marka waa habkii aan ganacsiga kaaga sheegay maalintii hore kale oo macalinkii baa la bedelaya macalin kale haddana mid kale iyagu waa isku noqnoqonaya marka halkaa macalimiinta hadday u yara samraan amba iska yara mataqaanaa u adkaystaan waxay noqon karaan inay guuleystaan insha allah cabdiqaadir wuxuu soo galay wadadii guusha kulamaa laga bediyey kulanna waa uu barbardhac buu galay waana kulankiisa ugu horeeyay imanka intuu kooxda leelinayo uu guuleysto FA Cup tartanka xidhiidhka kubadda cagtana kooxda heerka labaad ee cadaaladda ayaa reebtay bal tababaraha iyo qaab ciyaareedkan uu kooxda ku wada waa mid noocee iyo guushan maxay ugu dhigantay cabdiqaadir wuxuu haystaa fahan kooxda ganacsiga waayo markii hore iyagoo sii dhaadhacaya buu yimi sanadkii hore ee uu ku soo noqday markuu Yaasin ka tagay isaga soo celiyay oo kor soo qaaday ganacsigu waxaad moodaa inay qiimo muhiim ay badanayaan iyagoo muhiima waxaad arkaysaa marka la isleeyahay waa dhaadhici karaan amba dee ay ugu liitaan isleeyahay waa lagu ayay kor soo boodayaan marka macalinkaasi faham badan buu kooxdiisa ka haystaa si fiican buu la haystaa waxaan odhan karaa un anigu talo kusoo kordhi karaa inay training kordhiyaan waxaad moodaysaa markay ciyaartu 80 marayso kale nin walba meeshiisa inuu taagan yahay oo qof walba meeshiisa uu mataqaanaa kubadda ku haysto inuu bartaa aanu ka dhaqaaqin marka waa waxyaabaha lagu kala badiyo weyn AD markay ciyaartu marayso kooxdaas wax soo weerartaa chance way helaysaa bedelku ku keenay Mahergood isagoo kubad tuurma oo cajaa'ib tuuray Mahergoodna aan ku ogeyn kulamada in safka hore la keeni jiray saameyn ku lahayd inuu qaybta hore uu macalinku keedka yara dhow horta Mahir anu waa dadka kubaddooda aan aadka u mataqaanay u daawado aadkaan u xiiseeyo sababta waa killer weeyaan waa nin mar walba dhulka jiifa oo isku ogol waa nin aad ka go'an tahay mataqaanay inuu ciyaaro ma aha dadka habrada laadkiisu fiican yahay farsamadiisu ma xumo baasinkiisu fiican yahay dee qaabka dhexda looga ciyaaro waa sida loo baahnaa Maahiro kale inuu ciyaarta ka maqnaado anu ma jeclaysanayo Maahiro kale sababta waa nin xoogan oo dheer kooxdana difaaci karaya inta markaan ka nimaadno kulankaas aad buu xiiso badnaa isagoo waqtigu gabagaba iska yahay kulan kale aad u xiiso badan laba kooxood heerka labaad ka yimid is wajahay oo barbardhici labaad kala qaata waxa ciyaar cajaa'ib macalin Saciid Cali Muuse macalin Maxamed Soomaali hal iyo hal ayuu kulankaas ku soo dhamaaday wiilka waxa uu dhaliyay Fanto la yiraahdo GR oo runtii isaguna qaab ciyaareed cajiib ku soo bandhigay garoonka kooxda Maxamed Soomaali iyo qaab ciyaareedkoodu mid noocyo kala muuqda ma ku sii jiri karaan kooxaha heerka koobaad marka iyagoo ka yimid heerka labaad kulli wixii maqal Ilaahay ba og laakiin way u muuqataa oo dadaalka ay sameynayaan iyo sida ay u ciyaarayaan oo aad arkaysaa inay xiddoonayaan Jiro Fanto waa dadka ugu farsamada badan la imka isaga ninka macaanka la yiraahdo walow de kooxda uu ka maqan yahay nin la yiraahdo Nadiir oo horyaalka lugtii hore uu ciyaaray baan walanayaa inkastoo Saciid imka heleen iyo Muuse marka de waa niman way aragana way u joogaan oo Liibaan iyo kasto bedel lagu lahaa uu jabay rag far badan way araga u jooga Lampard kale marka de way haday ficil tamaan oo kubadda ku ciyaaraan kubad adag way joogi karaan eeda qaab ciyaareedka maanta dhulka soo bandhigeen ka war qaab ciyaareedkoodu horta ma qaab ciyaareedkooda aan joogteynin maalinta kooxda weyn la ciyaarayaan way badanayaan maalinta geemka heer ciyaarayaan kalena way isdhigayaan dhulkaas dhigayaan marka waxaad moodaa inaan joogteyn karin qaab ciyaareedkooda marka lagu ciyaarayo macaanka iyo wiilka Fanto la yiraahdo iyo marka lagu ciyaarayo Saciid qaab ciyaareedkoodu ma ka duwan marka kale ciyaaraya inkastoo macaan kulankan uu ka maqnaa horta marka uu macaanku joogo Jiro Fantana joogo de weerarkoodu waxa weeyaan 100% weeyaan sababta labadu way ordayaan farsamada way leeyihiin Saciidna waa caawinaya oo nin 9 taagan oo xoogan oo de wuxuu ciyaaraya si waaya aragnimo kubadda helana dad u shuuday marka penalty helana de isaga go'aaminaya isagoo dhowr ciyaarood ciyaaray uu laba gool leeyahay marka haddii ay joogteeyaan qaab ciyaareedkooda oo de kaararkuna ka yaraadaan de meel fiican bay gaarayaan sababtoo imka macaanku wuxuu ku maqnaa dhowr kaad maalin cudurdaar kale ku maqnaa marka haddii ay joogteeyaan isbedel bay sameyn karaan tababar Saciid Cali Muuse kulankan qaybtii dambe ayuu barbardhac keenay isagoo bedelo waliba sameeyay bedeladiisu ay u hirgeliyeen bal qaab ciyaareedkoogan kooxda kubadda aad ku haysanaysa aan ma la soo oran karaa dhameystirkii baa ka maqan kooxdan ee bangiga maalin horena waa sheegnay bangiga xagga weerarka goolashooda yar kubadda kooxdoodu waxa weeye kooxaha ugu daafacdooda iyo dhexdooda isla haystaan si fiican bay u ciyaarayaan
oo daafac adag bay ku ciyaarayaan dhex adag bay ku ciyaarayaan goalkeeperkuna dee imika goalkeeper fiican bay haystaan dhibaatada ugu badan waxa weeye weerarka iskoorkii baa ku yar صح way keenayaan iskoorkii baa yar maan jamaal iyo ninka kale toddobaadka xidhan Khadar. khadar waxa weeyaan Khaatiyo. khaatiyo kale iskoorkooda yar goolasha ay dhalinayaan baa yar fursad ma u banaanta ada hadal ku wata fursad ma u banaanta uu siin karo weeraryahankii sanadka dhow tolo goordhalinta ku qaaday heerka labaad naasir hadduu u baahan yahay cid dhamaystirta isagoo kulanka caafimaadkana natiijada u go'aami kulankanna goolka caawinta qeyb dhexaadla ka ahaa ها ناصر كلن كي هرنا ودليي كلن كنا عاون بولا inkastoo maal haddana farsamada uu ku darsaday ها ناصر دي هرتا way u baahan yihiin walow naasir laftigiisu meesha la qabsi uga baahan tahay uu ku cusub yahay oo maadaama uu Serie KB Serie B dii aad inuu kala duwan yihiin marka wala qabsi buu isaga laftigiisu uga baahan yahay macalinka anu kuma haysto inuu line up ka dhigo iyo inuu bedel ku soo galiyo midna kuma haysto sababta waa la qabadsiinaya intuu la qabsanayo marka dambe hadduu sida goolasha ku wado de booskiisa isaga la baxaya bila hadal waa hadduu maalin kasta dhaliyada booskiisa cidna kama haysan karayso labadan garbaha oo aad ka u dheereen farsamadoodu fiican yihiin wardi iyo maan jamaal iyo ninka kale khadar haddii ayaguna de isku dayaan inay target gareeyaan goolka de kooxdu way guuleysanaysaa waayo si fudud bay ku helayaan kubaddi Khalid xancha maqnaa kulankan tabin mala tabin iyo booskiisa ma maqnaa mala soo dhan kara Khalid horta Khalid yare waa farsamooyinka ku jira kooxda kubadda bixda u furaya ragga waliba ninka dheeraynaya wardi siinaya walow wardi uu yahay qof kubadda in badan helaya haddana fursadaha uu sameynaya ay mataqaanayay ay fiicnayn sababtoo ah goolka targetkiisu uu yaryahay wardi laakiin waxa fiican habdhaqaaqiisa iyo daaficiinu ka xijiyo iyo sidoo meesha u soo galaya iyo de daafici horta u nabadgeliyeenaya laakiin waxa ka dhiman inuu shabaqan u beegsado intaas ka maqan waa hagaag aad baad mahadsan tahay daawadayaal falanqayntiinii toddobaadkii 11aad ee horyaalka kooxaha heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa ayaan intaa ku soo gabagabeynaa isagoo ila falanqaynaya Farxaan Booq toddobaadkii 12aad ayaa cagta la isku dari doona iyadoo toddobaadkii 12aad kulamo aad u xiiso badan ay ka dhacayaan Goodir iyo Gaashaan oo cagta isku haya horyaalka ayaa iswaajihi doona maalinta Arbacada dawladda hoose iyo maaliyaduna kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad bay ku kala jiraan sidoo kale waxa kulan aad u xiiso badan dhici doona caafimaadka iyo kooxda ciidanka asluubta iyagoo ciyaartooyo sanadkan ay soo wadaarsadeen oo ka soo muuqan doono safka hore ee Tababar Shamsuddin ciyaartooyga Khadiir Ibrahim oo muddo u ciyaarayay kooxda ciidanka asluubta daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena waxaan iga tagay sida ay salaam